Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada wararka habeenimo ee xogta ciyaaraha. Qodobada daawad doontaana waxaa kamid ah ciyaaryahanka weerarka uga dheela kooxda Juventus ee Paul Dybala oo la xaqiijiyay inuu isaga tagayo kooxda. Gareth Bale oo sagootin loo sameynayo toddobaadka soo socda. Real Madrid oo doonaysa Mohamed Salah. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan daawadayaal idinku haynaa wararka caawa ee soo dhawaada. wardegdega oo goordhow soo dhacay ayaa ku waramaya in kooxda Real Madrid ay goordhow dhamaystirtay saxiixa ciyaaryahanka weerarka uga dheela kooxda Frankfurt ee Luka Jovic sidoo ku waramayso Sky Germany. Weeraryahankani 22 sano jirka ah ee u dhashay dalkaasi Serbia ayaa la xaqiijiyay in Real Madrid ay galabta kula wareegtay lacag gaaraysa 60 milyan oo euro. Shabakada Sky Sport ayaa ku waramaysa in ciyaaryahan Luka Jovic uu si rasmi ah ugu saxiixay kooxda Real Madrid 5 sano oo heshiisa isla markaana sanadkii uu ka qaadan doono kooxdaasi mushaar gaaraya 8.7 milyan oo pound. 22 sano jirkani heerka caalamiga ee xulka qaranka Serbia ayaa u saftay kooxda Frankfurt ee dalka Jarmalka 47 kulan isagoo u dhaliyay 27 gool. Real Madrid ayaa sidoo kale waxa ay doonaysaa in ay weerarkeeda sii xoojiso iyadoo haatan soo baxayaan warar sheegaya in ay xiriir la sameynayso Mohamed Salah marka xilli ciyaareedku dhamaadana ay doonayso in Salah iyo Eden Hazard ay ku biiriso weerarkeeda. Macallin sanadii sidaan macallinka kooxda Real Madrid ayaa waxa markaasi la hadal haya in uu doonayo xilli ciyaareedka cusub ee bilaabanaya in koox awood badan oo la soo shirtago maadaama Real Madrid ay xilli ciyaareed musiibo soo martay oo dhibaatooyin badan ay kooxdu ku jirtay. waxa uu noqonayaa saxiixii labaad ee xilli ciyaareedka kooxdu ay ku dhawaaqdo si rasmi ah iyadoo markaasi horay ay ugu dhawaaqday ciyaaryahanka lagu magacaabo Eder Milito oo ay markaa kala wareegtay kooxda FC Porto. Weeraryahanka kooxda Juventus ee Paul Dybala ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu isaga hayaamo kooxdiisa iyadoo ay haatan saxiixiisa doonayaan kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Manchester United, Bayern Munich iyo PSG. Wargeyska Tutto Sport ayaa ku waramaya in Paul Dybala la xaqiijinayo markaas inuu isaga tagi doono kooxda uu u baahan yahay fursad uu ku ciyaaro. Walaalka Paul Dybala ayaa dhawaan sheegay in ay u badan tahay in walaalkii uu isaga tago kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. Waxaa jirta fursad wanaagsan oo uu Paul Dybala kaga tagi karo Juventus. Waxaa jirta tiro ciyaartooy ah oo aan raaxo ku dareemaynin kooxda ay haatan joogaan ee Juve. Wuxuu u baahan yahay isbedel ayuu yiri walaalka 25 jirkani Paul Dybala. ciyaaryahanka reer Argentina ee Paul Dybala ayaa ka mid ah ciyaartooyda xirfadda wanaagsan ku soo bandhiga garoomada. waxaan la sheegay in qaab ciyaareedkiisa uu hoos dhac ku yimid sidii uu kooxda ugu soo biiray Cristiano Ronaldo oo xilli ciyaareedkii tagay markaa ku biiray Juventus. ciyaaryahanka heerka caalamiga ah ee Liverpool iyo xulka qaranka Masar Mohamed Salah ayaa la hadal haya in ay doonayso kooxda Real Madrid inay markaasi kala soo wareegto kooxdaasi uu ciyaaro ee Liverpool. wararka ka imaanaya dalka Spain ayaa ku waramaya in macallinka kooxda Real Madrid sanadii sidaan uu aad u doonayo inuu kooxda ku soo biiriyo Mohamed Salah iyo Eden Hazard si weerarka kooxda uu noqdo markaasi mid xoogan iyadoo kooxda uu isaga tagayo Gareth Bale oo markaa bedel looga dhigayo ciyaartooyda kooxdu ay doonayso. Wargeyska Daily Mail ayaa ku waramaya in Real Madrid ay markaa u dhamaado xilli ciyaareedkan dalab ka gudbin karto Mohamed Salah si ay markaa ugu soo qaadato. waxaan la fahansan yahay haddii labada weeraryahan ay ku biiraan kooxda Real Madrid in wax badan ay ka bedeli karaan kooxda culayska badan uu saaran yahay ee Real Madrid oo markaasi haatan ku jirta xilli ciyaareed habaaro ah. majalada Canal Plus ayaa ku waramaysa in Real Madrid hadda ay indhaha ku hayso weeraryahanka Liverpool ee Mohamed Salah isla markaana ay u badan tahay in markaa ay xiriir la sameyn doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan. waxaana Zidane uu doonayaa la leeyahay in uu xoojiyo weerarka kooxda. weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Gareth Bale ayaa la xaqiijiyay in markaasi uu ka tagayo kooxda Real Madrid marka uu dhamaado xilli ciyaareedku. ciyaaryahanka heerka caalamiga ee xulka qaranka Wales u dhashay ayaa la xaqiijinayaa in ay u badan tahay kulanka kooxdu ay la ciyaari doonto Axadda soo socota kooxda Real Betis in markaa Gareth Bale uu ku dhawaaqo mustaqbalkiisa isla markaana sagootin loo sameyn doono. ciyaaryahankani ayaa tan iyo markii Cristiano Ronaldo uu isaga tagay kooxda waxa uu markaasi ku jiray qaab ciyaareed aad u liita isagoo aan soo bandhigin xilli ciyaareedka dhamaanaya xirfadiisii wanaagsaneed ee looga bartay. waxa haatan wararka qaar ay sheegayaan in kooxo dhowr ah ay doonayaan in ay qaataan Gareth Bale haddii uu ka tagayo Real Madrid. kooxaha doonaya waxaa ka mid ah Manchester United
iyo Tottenham Hotspur oo labaduba ka dhisan dalka Ingiriiska waxaana loo badinayaa in uu dib ugu laaban doono kooxdiisii hore ee Tottenham Hotspur oo ka dhisan iyadu magaalada London. Kooxda Atletico Madrid ayaa doonaysa in marka ay la wareegto ciyaaryahanka weerarka uga dheela kooxda Arsenal ee Alexander Lacazette kaasoo ay doonayaan in ay markaa bedel uga dhigaan Antoine Griezmann oo ku dhawaaqay in uu kooxda isaga tagayo markii uu dhamaado xilli ciyaareedku. Alexander Lacazette ayaa kooxda Arsenal uga soo biiray kooxda Lyon ee dalka Faransa waxaana ay ahayd sanadkii 2017 haatana waxaa markaasi la xaqiijinayaa in ciyaaryahan Lacazette oo markaasi u badan tahay in Atletico Madrid ay wada hadal la furto isla markaana ay ku wargeliyaan in ay bedel uga dhigi doonaan Antoine Griezmann. waa hagaag daawadayaal wararkii ugu dambeeyay xogta ciyaaraha inta hayno joogaan haddii Allah uu ogolaado waxyaabaha soo kordha daawadayaal dib ayaad kala soo doontaan inta ka horeysa nabadgelyo.